fadlan subscribe dhe si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasha ku xidhan channelka waa maalin wanaagsan ciddii habeen u tahayna habeen wanaagsan. Maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa videogeena indhasarcaadku ma runba mise waa been. Indhasarcaadku waxa weeye masraxyada sixirka lagu soo bandhigo ee had iyo jeer aynu ku aragno waxyaaba aanaynu malayn karin, qof dhexda laga kala goynayo, dab laga sameynayo shimbir. waxyaabahaasi run ma yihiin mise waa been? waxyaabahaasi oo dhan waxaan ku daah qaadi doonaa barnaamijkeena. kahor intaanaynu barnaamijka bilaabin waxaan ka codsanayaa channelkan ciddii ku cusub inay subscribe tiraahdo si ay u hesho barnaamijyo xiiso leh oo channelka ka baxaya. bal aynu soo qaadano muuqaalka koobaad. muuqaalkani waa qof dhex seexanaya meel saxaarada ama bogosa. deetna qofkaasi marka uu dhex seexdo waxaa kusoo dhaqaaqaysa miishaari weyn oo tabiraha kala goysa. waxay kaga beegmaysaa halka bartanka ayaa qofka laga kala goynaya. deetna qofkii laba qaybood ayaa loo kala dhaqaajinayaa, madaxiisii, calooshiisii iyo qaarkii hore qofku dhinac bay u dhaqaaqaysaa, lugihii iyo qaarkiisii dambena dhinac bay u dhaqaaqaysaa, ama miiskiibaa dhexda laga kala gooyo, laba qaybood u kala dhaqaaqaya. haddaba bal haynu eegno arrintaasi ma sixir baa mise waxa weeyaan farsamo. farsamadaasi waxay marka hore loo sameynayaa qaabka miiska ayaa loo qaybinaya laba qaybood oo laba qof ay galaan. xagga hore waxaa gelaya qof ayaa kurka kala jeesanaya, lugahana wuxuu gelinayaa meesha aynu u haysanayno miiska lugihiisii tahay, balse qof ayaa lugaha kula jira. qofka dambe wuxuu gelayaa qaybta dambe ee miiska, wuxuu lugaha ka saaraya xagga dambe, madaxana wuxuu ku laalaadinaya xagga hoose ee miiska. deetana sidaas ayaa ay ku hogelayaan. deetana inagu waxaynu moodaynaa inuu qof dhex jiifo, laakiin miishaartu waxay ku beegmaysaa miiska ayaa marka hore laba qaybood kala qaybsan. halka maran ee labada qof ee ku dhex jira miiska dhexdiisa ama bogoska ama saxaarada, halka maran ee udhexaysa ayay miishaartu ku beegmaysaa. inaguna waxaynu muuqaalka u haysanay in qof dhexda laga kala gooyey, laakiinse ma aha qof la kala goynayo, sixirna maaha, arrintu waa sidaa. muuqaalka labaad haynu eegno. isna muuqaalka labaad waxa weeye muuqaal aynu inta badan aynu aragno. waa qof bakoorad keliya taageeranaya, haba yaraatee aan dhulkana fadhiyin, wax hayaana aanu jirin. bakooradaas inta badan waxaa ka jirta wadanada India, ayay u badan tahay wadanka India. bakooradaas ayuu qofku haystaa, deetana dadku way soo agmarayaan, ama qof baa hoos fadhiisanaya, dhinac si walba u sameyn karayaan. waa qofka hawada taagan, haba yaraatee wax hayaanu jirin. laakiin bahashaasina waa farsamo lafteeda oo kursi marka hore la sameynayo. kursigu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, qaybta uu ku dul fadhiyo iyo qayb dhulka taala oo inta badan dadka laga qarinayo. markaa qofku bakooradii buu qabsanaya, markuu qabsado waxa la moodaya inuu qofkii bakoorad haysto, maraa lagu daday, laakiin waa qofka kursiga ku dul fadhiya. markaa farsamooyinka inta badan ee sixirka u naqaana aad bay u fara badan yihiin. daawada intaas waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka. fadlan ha hilmaamin inaad like saarto haddii video wali ku cajabiyey. haddii aad channelka ku cusubtahay inaad subscribe tiraahdo, aad baad mahadsan tahay.